gaar ahaan waddanka Djibouti dad iyo dibad meeshay meel kasta joogaan waa anigoo ah Kaboral Chef Mustafa Aadan Shire kana tirsan ciidanka qalabka sida Djibouti xerada Sisuu kamid ah kana soo shaqeeyay shanta gobol ee waddanka 2 sanadood kamid ah ciidanka AMISOM ee Hiil Walaal waxaan maanta halkan inaga sheegayaa dhibaatada tacadiga cadibaada lagu hayo ciidanka dalka inaan u adkeysan kari waayay maanta anigoo arkaya dhibaatada loo geystay walaalkeen Lieutenant Fuad Yusuf Ali oo ah dadka maanta waddanka xoogga looga baahi badan yahay oo ah bilood dhalinyartii waddanka ay wax baratay ee waddanka uu maanta inuu dheefsado ay ahayd oo maanta halka lagu riday aan arkayno waxaa jira dhibaatooyin badan oo ciidanka lagu hayo tacadi cadibaad lacag goys xarig bila macniya dhibaatada ciidanka lagu hayo halka kuma soo koobi karayo waxaan idin sheegayaa dhammaan shacabka reer Djibouti waxaan sheegayaa inta aad dhibaatoonaysiin in ka badan baa ciidanku dhibaatoonaya inta tacadi iyo dhibaatada haysata in ka badan baa ciidanka Djibouti haysata waxaan maanta idin sheegayaa inay dhibaatada geysanayso afar madaxda ka tirsan oo reer mid ah oo dadka dhibaataynaysa tacadi u geysanaysa waxaan maanta idin sheegayaa inaan dhibaatada aan u dulqaadan kari waayay waxaan ka leeyahay walaalkay Fuad Lieutenant Fuad dhammaan adiga ayaan ku nahay halka aad ku jirtid oo ku soo wada soconnaa dhammaan ayaa saa u dhannahay annagoo gacmo haysanaa annaka iyo shicibku waa inay gabood ama wada galno ama aad ku soo saaranno waxaan shicibka reer Djibouti u sheegayaa